وياي marka hore waxaan leeyahay reer muqdisho aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin maadaama xalay aad ku guulaysateen in aad joojisaan showgii bahdilka ku ahaa caasimadda ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed magaalada muqdisho xalay waxaa la qorsheeyay in show ay ku dhigato gabar la yiraahdo Habboon Nuura oo horay u soo qaaday hees lagu aflagaadeeyay magaalada muqdisho iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed arrinkaas waxa weeye ciyaal xamarkii magaalada muqdisho deganaa ayaa ka dhiidiyay oo diiday oo ka soo horjeestay ugu dambeynna dowladda federaalka Soomaaliya waxay go'aansatay in ay showgaas hakiso maadaama arrimo amni darro ay ka imaan kareen showga waxaa loo qorsheeyay hotelka Elite hase yeeshee dowladdu markay ogaatay in hotelkaas laftigiisa dhalinyaro is urursado aad u tiro badan ay u socdaan meeshaan fawda ka dhici karto ay toos u joojisay oo amar lagu bixiyay showgaas oo uusan dhicin waxaan leeyahay showgan in muxuu ahaaytay uu dhici waayo ama xansaraddu kor u kacdo mas'uul waxaa ka ahaa dad wax magarata ah oo aan ka xusi karo laba qofood oo aad iyo aad qabyaalad u isticmaalay mid waa maamada sheegata gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir midna waa wiil dhalinyaro ah oo isaguna iyada la socday oo dhalinyarada muqdisho ka mid ah waxa weeye qaab qabiilaysan ayay arrinka u wajaheen waxa la difaacayana runtii qabyaalad iyo qabiil ma ahayn waxa la difaacay sharafka ummadda Soomaaliyeed sababtoo ah malihin cadab xamar ka daran marka la yiraahdo xamar kow hata muqdisho ku dhacaysa caasimadda bay kelmadaas ku dhacaysa kadibna wama yaliha cid daba joogto Soomaaliya oo dhan ah waxa weeye marka qof ku tilmaamay Soomaalida kale inay cadow yihiin in meeshii uu sidaas u waxa ay tahay cadowga uga arkay ama u soo aflagaadeeyay lagu soo dhaweeyo way qaadan waayeen shacabka reer muqdisho waxa la difaacayna waa qarnimada Soomaaliyeed ee qabiil lama difaacin laakiin dad wax magarata oo aan isleeyahay hadaladii kaftanka ahaa ee baraha bulshada ayaa la tegay oo unukaaladii ayay run moodeen adduunka waxa la yiraahdaa dad waxa ugu liita qofka been uu sheegay rumaysta beenta ay dadku sheegayeen qola rumaysatay oo run mooday ayaa dadka hiidka gaarsiisay laakiin ugu dambeyn natiijadeedii ay dhaxleen oo maanta waanu uma baahna waxa weeye marka waxaan leeyahay walaalaha Abgaal Ismaan niman yahow kelmadda horta unukaale ah aad iyo barmadoobe idinku tahay iska daaya oo xogaad aad anabti garowdeen sababtoo ah waxa weeye magaaladu waa magaalo caasimad ah oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan inay magaaladaas u dhisanto ay sabab u ahayd hadda waxa weeye dadka u badnaan kara laakiin magaaladan inay magaalo noqoto guud ahaan Soomaaliya ayaa mas'uul ka ahayd oo hantideedii gelisay waxa weeye marka waa caasimad Soomaaliyeed unukaalna kuma habboona marka dhinacaas laga eego haddii waxa aad ictiraadaysaan la aado oo ah goofkana waad ogtihiin waa laydinkaga goofa badan yahay habargirtaan maalkasta markay hadasho waxaa tiraa guriyada dowlad ku jirtaaye maxaa ay tahay unukaad marti noota waxa weeye waa been iyo xadgudub iyo xaqdarro sababtoo ah goof magaalada haddii la aado waxa weeye cidda ugu goofta badan waa taqaana dhulalka dowladda hadda ay degan tahay dadka asalka goof ahaan u lahaa way joogaan mana sheegaanay magaalada mursada hadlaa hore waa goofkayga ma aragteen waxa weeye carabtu waxay tiraahdaa yani al insaan laa yus'al ilaa ما يفقد لفظ ساسة هجرة وكلمة مهما عمل واي يعني إنسانكو ما ويديه وحو يسوي وحو وايو أوصل هيسن أمبو رادية صراحة العقلات يكون عدين بدهرادينيسا شغال ديكا شغال هرادينيسا أدوك ويحب باهداد هرادينيسا مركا waxa qofku ku celcelinayo waa wax ka maqan maanta dhahda idira suudkan aniga ale taygan aniga ale de macna idin ma sameynayso sababtoo already waan haystaa soo ba waxa weeye marka unukaale laftirkeeda waxay tilmaamaysaa wax la anshalaan waxa marihidina waxa weeye marka waxaan leeyahay dadka yaan muxuu ahaaytay lagu kala geeyay qabyaalad oo arrinka ka tanaasul qodob intaas aan ugu gudbaya waxaan rabaa inaan ka hadlo kelmad kale xalay qoraalan sameeyay xilligii muxuu ahaaytay hawsha socoto waxaan iri
hawiyaan habargii ku jirin ma ahi baa dhaanta sababtoo ah maba jirtaa idhi cid aan habargidir ahayn oo u damqanaysa magaalada muqdisho warkaas aadaa la igu weeraray waxaa weeye dad baa aad uga xumaada laakiin aniga ilaahay sida uu ii abuuray waxaa weeye marka hore waxaan sheegayna waan ka fiirsadaa wuxuu sheego nin difaaca kana ilaahay waa iga dhigay iyagoo wax walbana ay factsiin hortiinan hadda ka barxiya magaalada muqdisho oo caasimadda ummadda soomaaliyeed ah waxaa weeye halganno badan bay soo marto qaarna taariikhdu qortay qaarna aysan qorin qaar aan joognay qaarna aanaan joogin xilliyadii hore goystaha ay 60kii iyo haddii aan u laabanno beesha abgaal ismaan waxaa la sheegaa in ay xagga talyaaniga u badnayd oo bro talyaani ahayd sidaasna ay wax badan macnaha ay uga heshay oo dadkii talyaaniga aadka ugu dhawaada ay ahayd waa goystihii anigu ma rabo taas inaan gaa sababto anigu ma joogin haddaan ka faalloodo waxaa weeye wax ama naqli ah qof ka soo guuriyay noqonayaan ama muxuu ahaatay beenbayba noqon karaa waxaas waxaa weeye laakiin laba dhacdo ayaan dul istaagaya muuqaalku dhowaad usii dhaarado anigoo rabin magaalada muqdisho laba dhacdo oo looga difaacay cadow oo anigu aan u joogay baa jirta 1993 magaalada muqdisho dagaal baa ka dhacay maraykanka iyo u dhaxeeyay general ID dagaalkaas waxa la isku hayay waxay ahayd maraykanku waxay rabeen magaalada muqdisho iyo Soomaaliya dhanba inay iyagu ciday rabaan u dhiibaan muxuu ahaatay taladoodana ay ka socoto laakiin ninkaas generalka ilaahay uu naxariistay oo kulli nooga aqoon badnaa aniga hadda gadaal baan ka ogaaday waagi waxaan lahaa waan yaraa laakiin waxaan la warnimo kan cadaanka oo ay waxay hagaajin rabaan ninkan muxuu ula diray laakiin taariikhda maraykanka markaan dib ka fiiriyay waxa weeye oo wadamadii naga dambeeyay uu galay aan fiiriyay iyo taariikha horaba meel uu hagaajiyay abid ma jirto marka yani dagaalkii caydid galay dagaal in la galo mudnaabu horta ahaa general caydid waxa weeye iyo beeshiisa habargidir iyo kolley SNA urur leeyahay watay waxa kale SNA ku raaca ayaa shafka u dhigay Amerikaan iyo Saddam iyo labadiisi dawlad ee watay Afghanistan haddii aan soo laabto waagaas waxay lahaayeen Clinton waa Cornel Abgaal kaaraan kursiga u yaala dhanka Mareykanka ka safnaayeen Mareykan xamar laga saaro lagula diriro wax shaqa ku walayn way diidanay waxay jaasuusi jireen waliba general Aydid oo maalin kasta weerar waxaan arki jirnay meel ka dhaca oo la leeyahay Aydida loo maleynay inuu ku jiro turjuwaanada iyo jawaasiista la beegsanaysay gantaalada Mareykanku jooga iyaga ahaa because illa khaariji rabeen Mareykanka col uma arkin laakiin Aydid iyo SNA iyo wuxuu arkeen cadow dagaalkaas habargidir kumanaan qof baa uga dhimatay hal maalin kaliya oo muxuu ahaatay iyadoo shirku ku jirto uu yiri 4 saac isniinahay inda beeshay SNA 70 oday oo elite habargidira ayaa meel lagu duqeeyay dadka shacabka hore tirama baahay waxa weeye waa difaaca dalka qayb ka mid ah maanta taariikh Soomaaliyeed bay noqotay wadadii Carabta iyo muxuu ahaatay adduunyadii kala dhan markay Mareykan isqabtaanba waxaad arkaysaa inay leeyihiin sida Soomaaliya dijideena waxa weeye ilaahay jannada ha geeyo general maxamed faarax xasan Aydid iyo intii la socotay ayaa sabab u ahay taas waa meel maxkamadihii munaafiqiinta ahaa markay naga carareen maxkamadaha munaafiqiin baan u aqaan sababtoo buul quraanyo intay nagu kabkawiyeen naga tageen quraanyada buulkeeda kabkaw dad jugjug siisa aad hoos seexato de way ku cunaysaa waxa weeye waa kuwii baydhaba ka soo jabay markay baydhaba ka soo jabeen way carray ilaa Kismaayo si carareen magaalada Muqdisho beeshii hawiye oo kaligeed ah oo gacanta wax ku hay iyo Itoobiya soo socota ayaa maxaa isku soo beegmay beesha hawiye kula degdeg ah la iclaamiyay waxa la isugu tagay hotel Suufi hotel Suufi la isugu tagay waxa la yiri warniman yahow waxa soo socota xabashi dawladda yare tabarta daran ee la socota dadku waxba uma arag laakiin Itoobiyaanka 70 kun ciidanka ay soo socday maxaa buuxa ka soo gaaraa dadka walwal ku hayay sababtoo waa niman isir ahaan oo nacab waxa la yiri marka Itoobiya way soo socotaa way xoog badan tahay war maysu dhiibnaa mase waa dagaalna ilaa dadkii tashay beesha wiil markii la falaqay waxa la yiri inaan dagaalno ayaa nooga roon in isdhiibno sababtoo daas dhiibna adigu ugu xeeldeysanayaa birna waa la duleeyaa waxa la yiri waa yahay si aan hawsha fulino aan maamul samaysano gole la yiraahdo golaha odayaasha dhaqanka beelaha uu yaal sabiye gudoomiye golaha waxa laga dhigay nin Abgaal Ismaan oo la Cabdi Imaam Umar hadaan khaldaray hilowle ma nooleen marka Cabdi Imaam buu ahay jaclay hadii uu san ahayna ina Imaam Umar nin oo ala kulli xaal Abu Bakar gaabana ayaa gudoomiye laga dhigay gudoomiye ku xigana waxa jaclay laga dhigay Maxamed Xasan Xaad
afhayeenka beelaha na waxaa laga dhigay ninka la yiraahdo Sheekh Axmed Diiri Cali Allah u naxariisto saas markii la yahay waxaa hawiye isku raacay dhaqaale in la urursado hub la iibsado dagaal la galo Itoobiya kale la jihaado xaalku isagoo uu sidaas yahay shir kale oo shirka hawiye ahayna abgaal wuxuu ku qabsaday hotel Ramadan waa shirka Salaam Cali jeela ka qodbayn doono oo uu leeyahay annagu Itoobiya kan la jirnaa dawladdan ka tirsannahay waxa weeye habar gidir iyo wixii kale ee daba jooga koonfurta Muqdisho dhan mursade habar gidir hawiyaha kale degan kulli wuxuu leeyahay waxaan ka samaysanaynaa qad cagaar aan ka samaysano dawladda anagu aan garab siino habar gidir hal habayaan ku darsan waxa weeye kulankaas wuxuu ahay kulan kala qaybin hawiye ah durbadiiba hawiye wala kala qaybin beesha abgal geesi u baxday waxay raacday gumeystii yimiday bay raacday sababtoo wuxuu yiraahdeen ra'iisul wasaaraha nagaale uu isku xigeen gaashaan dhigana salaada aha unuku dawladdan nahay kuwaan waa in la laayaa waqti madaafiic aan loo qoray wax yar ka bacdi ninkii gudoomiyaha ahaa ina imaam Umar gudoomiyaha yani golaha yani maxuu ahaaytay odayaasha dhaqanka beelaha hawiye ninkii ahaa ayaa hadana hoos laga dulmiyay ilaa ma rabaan abgaar in maxuu ahaaytay hawshan gaar ninkii loo yeeray waxa li adiga madaxweyne Cabdullaahi Suwaar ugu geeyay nimankan kala jibi si naloo burburiyo ina Umaraan la ka kaxaystay ninkii waxaan aragnay maxamed Umar Allah u naxariistay maxamed Umar walaalkii inuu ahaa jeclahay oo madaxtooye inta geeyay cagaha loo dhaqay sida qoolay la soo qabtay oo leeyahay waa ka soo tagay fidna wadayaashii yihiin habar gidir mursade dudubli baad cabde gaal jacal ugu labo dhan xawaado wixii joog sheekhan adigu hawiye kale inta arab gaalahay ba halkaas joogta fidna wadaashi waxa lagu ka soo tagay cagaha loo dhaqay gudoomiye ma iska tag hawiye kulan kale isugu yimid waxa la yiri wariyaada dhankii abgaal waa tageen maxaanu yaalla ma isdiibnaa oo abgaal maxaa nooga xir abgaal oo loo difaacay oo waxa la isma dhiibayna go'aan waa noo keenay maxamed xasan xaada si gola ka fuulba ugu booda kursiga ilaa iyo maanta ku fadhiyo nin murso ah gudoomiyaha odayaasha dhaqanka beelaha hawiye maxamed xasan xaada lagu bilaabo in kursiga abgaal ka cararay oo raacay gaaladii waa taariikh go'an oo cid walba ogtahay halkaas ayaan dagaal ka galnay marka haddaan nahay beelooyinta hawiye habar gidir dagaalkaas 50,000 haday ku dhimatay ugu yaraan 20,000 oo kamid ah habar gidir weeyaan magaalada Muqdisho waxa weeye maanta anigu 5 oday markaan ka dago beeshayda jufada u dambaysa kumanaana ka dhimatay mursada iyo iska dhaaf waxa weeye marka dagaalkaasay galeen ilaahay waa nagu guuleeyay Itoobiya 10 u dhignay waa la dirnay magaalada Muqdisho waa ka saaray waxa weeye marka abgaal Ismaalow nimanka dhiigooda iyo maalkooda iyo naftooda intaasoo goor oo adigu aad cadowga la socotay hurayay ayaad waxaad leedahay baladkaan adeeska oo ninku wuxuu leeyahay waa waardiyeystaa maantana waxay joogtaa cadowda waa labo oo waa midka gudaha iyo midka dibadda kii gudaha inaad hadana hor ordaysaa yaa la warrami kara aan kay maaragtay gabartaan naga socotaa yaa la warrami kara iyadana waad aragteen xay meeshii ku dambeysay waxaan leeyahay gabgabta la joojiyo cagiina dhulka dhiga gabadha miskiinta yare reer Samaroon annagu cadaawadna uma qabno beeshadu beel culaadiyaba ma waa beel nabaade laakiin waxa weeye waa edbin adinka abgaal Ismaana iyo iyadaba xala waxa la idinku sameeyay nacayb ma waa edbin waa la edbinaya magaaladan dad baa dhiigooda u huray oo every day u taagan inay cadawga ka difaacaan waxa weeye marka gabadhaas way gaftay waxay ku gaftay waxa weeye gurigeedii bay ku gaftay gurigeedii waa la edbinaya inay fikirto baan doonayna nafsadeedana duulaa lagu ma ahan sharafkeedana duulaa lagu ma ahan hadda waxaad soo bedeshay gabarta wiilaa watay oo inuu dhistar waa la xididayna dhib ma jiro guurka looma diidanaba gabadha kumanaan gabdhaha jooga oo beesheeda ama beela kala oo xamar lagu qabo cidna ma hadal hayso laakiin waxa la diidan yahay dadkii aad cadawga u aqoonsatay walaalaha aad ku xadgudubtay in adigoo raali ahow dhihin waxa la walaalka haddii candhuuftaadu gaarta calaacashada hadaba taalo waa inaad ka tirtaa candhuuftaad lagu tuftay maandhay naga tir baan leenahay ha soo fadhiisato ha tiraahdo walaalayaal waan khaldamay annagaa u kala kicinayna annagaa barmuud garaynayna shawgeed waa walaasheed laakiin waxa weeye inaad dulmisaa dhalanaya daciifnimay kugu tahay haaligelin ha bixin aad adigu hoos ka dhahdaan abgaalow xabadna aad u qaban weysaan dee waxa way idinka ceebda ku tahay waxaan leeyahay reer Muqdisho ha guulaystaan ciyaal xamar ha guulaystaan ummadda Soomaaliyeed